candhada neefka ku jiro kale haddaad listo yaa way darari haddaad listo way darari haddaad sadayso muxuu samaynaya caanihii meeshay ku jiraya neefka mar kastoo la liso soo godlan maayo soo caanihii sii badan maayaan bahalkan haddaad sii jiijiidood maandhan aad rafaadiso wuxuu baranayaa uun inuu kaadidu ka socotuu baranaya waa dararahayaa ma istaaghayo wixii waa rafaadaysaa marka adeer sidiisa u daa ha isku dhibin ha daranin saasuu leeyahay wuxuu leeyahay waman ictaada dalika ubtuliya bihu bimaa cuufiya minhu man laha canhu haddaad iskaga mashquuli lahaydood faraha ka qaadi lahayd laguguma ibtileeyeen waxaan lagugu ibtileeyey laakiin in lagugu ibtileeyo maxaa keenay adigaa shaqo kala galay meesha waxaa ku jiro mudan inaan tilmaanno inta badan waswaaska dahaarada iyo cibaadaadku waxaa u badan madhabka shaaficiga dadka haysta u badan sababtuna waxa weeye shaaficiyadu baabka dahaarada iyo cibaadaadka xagga ixtiyaadka iyo dadaalka madaahibta uga badan yihiin waa kaga adag ilaa waxaan moodahay mutaakhiriintu inay keeneen laakiin imaam shaafici alayhi rahmatullah imaam madhab alayhi rahmatullah ayaa waxa ku qoran hadalka wuxuu leeyahay wayastabri'u al-baa'ilu min al-bawl li'alla yaqtura alayhi ruuxa kaajay kaadida waa inuu iska bariyo iska daahiriyo wa ahabbu ilayya an yastabri'a min al-bawl wa yuqima sa'atan qabla al-wudu' waxaan jeclaan lahaa buu yiri inuu kaadida iska bariyo iska daahiriyo muddana uu joogo intuusan weysaysanin intaada weyse qaadanin oo kaayida kadib waxoogaa muddo joog waqti qaado ثم ينظر ذكره كذبنا حبنك أيو دقدقاجن أما الروحي أما الجيدي قبل الاستنجاء ثم يطوى انتو سن استجيسن وإمامك واي متأخرين تمذهبك ويكسي دردرين ووحان هذا الشيء إني بيكسي دردرين مركز ظهارده كاقلي إلهي روحات قاري سأدو استجيستي أتراد استجادة ولما يسمى بدا ما يستر أدو ويسيستي أتراد ويسيستي وصحبه معه أدو قبيستي أتراد ما يقبيس كاقا وحبا كدبا ساس واي معنا طيب وسوسده marka dahaarada way gashaa nijaasaadka way gashaa sidoo kale iyo mubaahaadka dadka qaar ba waxay ka gashaa waxyaalaha mubaahaadka markaas waxa dhulka yaala ee xoolo iyo geed iyo hanti iyo wax la cunayo wax la cabaa wuxuu leeyahay asalku waa nijaas wax walba iska ilaalinaya marka wax walba waa xaraan waxaana hubsanin waa xaraan dhulkaas waa nijaas masaajidka muxuu gacan ba martay waxba si ka ah maruu wataa sallibu wataa waa dhiganaya wuxuu leeyahay nijaasadiisu ku gaadhin dadaal buu leeyahay Soomaaliyeed waxaasoo wuxuu ku imaanayaa wuxuu waswaasku ka galay baabka dahaarada ama nijaasaadka xageedu ka galay tayib waa warac wuxuu leeyahay laba nooc iska saarano nooc diin ahaan
qaarkood ruuxa gaarsiinaya in qalbigiisa ku soo dhacaan waxyaabo fara badan oo aad u culus oo gaalnimo keenaya ma loo qabanaya ruuxa dambi ma ka soo gaaraya waxyaalaha noocaas oo kale ma la isu haystaa ilaahay naxariistiisa ka mid tahay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha inaan ummadda loo qabsanay xadiidka Abu Hurayra haddaan soo mareynay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam tujawwiz li ummati amma haddathat fi anfusiha aw waswasat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam bihi ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay waxay nafteedu ku sheekaysato ama nafteedu ku waswaasiso haddaynan samaynin ama ayna ku hadlin haddaad wixii qalbigaaga ku jira waswaas iyo shakiga ah aad ku dhawaaqdo markaas waa lagu qori markaa waa halis haddaad samayso xubnahaagu fuliyaan waa lagu qori laakiin intay tahay wax qalbigaaga ku wareegaya adiguna aad la dagaalamayso iska celinayso lagu qabsan maayo taas macna ilaahay naxariistiisa ka mid tahay tabaaraka taala awood looma laha bini aadamka ilaahay wuxuu u qabto ama u ciqaabo waa wuxuu kari kara waa sooma wax la kari kara ma bahaba saxaabadii nabiga ka sheeganay sallallahu alayhi wasallam Soomaaliyeed oo ku soo daado waxa ku soo dhacaya marka ilaahay ummadan u qaban maayo tayib loo qaban maayo xadiid saxiixan ku yaala laakiin markuu cibaadaadka galo burin maayo sida loo badan yahay tayib waswaasku cibaadada ma buriyo laakiin maxaa dhacay ajirku nusqaamiya hadduusan waswaas yariya wax yaroon xoog badnayn waa la isla ogol yahay inuusan salaada burinayn cibaadada burinayn hadduu adkaado oo ruuxa cibaadadii uu ku jirayba xusuusteeda ka qaado wixii la akhrinayay wuxuu akhrinayay fahamkeeda uu ka qaado markaasaa fuqahada qaar ka mid ah ay leeyihiin cibaadadii waa buraysa waa inuu soo celiyo laakiin sida loo badan yahay maya عمومك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادتي ما بريسو لكن أجر كانوا سقامية لأنه وحوي عبادة سيدة طبعا أنت قلبك وجوغات كل هذا هاي عبد الله بن عباس وحوي ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها صلاة داك أنت عقلك وجوغي بعد كل هذا وحوجينيا حديثك كوي من سننك والنبي صلى الله عليه وسلم أدونك صلاتي سو كبحيا ولم يكتب له منه إلا نصفها سواء صلاة النسمة يوحكي لأن لوجا قريب ضدك قارقوط ضمينية قار صلاة وحي كبحيان يجو ثلث كلي لو قري سدح ميلود ميل قار يجو أفر ميلود ميل لو قري قار شن ميلود ميل قار لح ميلود ميل قار تضو ميلود مركا لو قيبية ميل قار سديد ميلود صلاة مركا لو قيبية ميل قار سقال ميلود مركا لو قيبية ميل قار طبان ميلود مركا لو قيبية ميل بصلاة كهلي ما حيكون إيمانيسا وحيكون إيمانيسا قلبا أنت النية هذه قلبي جا وتشوقي بالله انت قلبك مقنا وحب مليد لكن واجبك إلهي كصاري وكادعيا لا باكل الدوان إنه واجبك كادع حلك كادع إن أجرك يهش أجرك مركب حكو حرية قلبه سيدا قلبك وتشوقي كحرنت طيب انت سي أينك يقدبنا الصواسك يشرح الديسي يميلها وقالوا يسيابها وكليهاي aynu u nimaadno maxaa daawo u ah si fudud waa cudur walbana daawo u leeyahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu dawaa'an ilaahay cudur ma soo dejin ilaa daawo u soo deji aadamuhu ama ha garteen ama ha garan waayeen cudurradan hadda ka sabirka ah caafimaadka bini aadamka baabi'inaya daawo la'aanta bini aadamka baa garan la mooyaan daawo weylay laakiin waxay ku tusaysaa aqoon yarida bini aadamka iyo tabartiisa daawadii ilaahay uu ugu talagalay xanuunkan baan ilaa iyo hadda loo furin la tusin xanuuno badan oo waagii hore laga quustay oo daawo la'aan ah hadda daawadoodii la helay soo saas ma macnaheedu ma hadda daawada la abuuray ba may way jirtay laakiin aadamahan garanaynin saas way macnaha marka cudur walba daawo leeyahay daawadu waswaaska lagu daaweeyo culimadu laba nooc bay ku sheegaan nooc wax weeye geedo ibn al-qayyim alayhi rahmatullah kitaabkiisa at-tibb an-nabawi wuxuu ku sheegay geedaha qaar kooda waswaaska lagu daaweeyo geedka sanaaga la yiraahdo yuxilami
هذا مقصود كأنه معها والنوع كله أو كمهم سنكا أو الأدوية المعنوية دواوين كمعنوي كا يدا أنا مقصود كا وأنا دواوين كا محو هاي قرآن كا يوحي اللهم بذا يذكار تقرآن كتل مامي النبي كتل مامي صلى الله عليه وسلم تاوي ميدا إن هذا إن شاء الله تعالى يستول تاقي دونه كون وحكا وداوذك بعد وحويان الاستعاذة بالله والفرار إليه منه هنا الإلهي كما قنقشو يستقرأ عررته لأن سيد إلهي قرآن كأنه وشيغي شيطان شركي سإلهي بالله عرر وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وحاتر هذا ربي ومغان بانكواه شيطان كوسواسيال كيسان الله مغان كاغاه وحان مغان كاغاه هاي إنو الشيطان كيقصو حاضره مركا إلهي مغان قال صدح ميلود بالقرآن كسيدوك الإلهي كل شيء صدح سورود وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله عضو الشيطان كفساديو كوسواسيو إلهي كما قال صدح سورود أعراف يا مؤمنون هي سورة فصلت أما حميم السجدة صدح دوالو شيء صدح دو وحال إسقرب دغاي عدو غاغا بني آدم كا يا عدو الشيطان كا صدح دبا وحال يلي عدو بني آدم كا واحد كلا دقنتا دبيعد وناكسن إحسان الصمين الصبر عفي بالغولا دقبيالي عدو غاغا جينك الشيطان كا أنا وحال يقول إلهي كما قال وصدح ميل أفراد الله ينو قرآن كمذا وإلا وضو يسوق إيمانيا لأن عدو بني آدم كا هدي إحساني وناك أدو الصميسو حقا وقبسومي وقود شعلان وقوسو دوان لبكي سينات كنا بلتشارع كريس كلاكين حال كلام عليه اسكمس السبي كرتيد يا حبك ما قبان كرتيد وإنه ناد إلهي الله دقال أنتو إلهي كعرتوا طيب نبي صلى الله عليه وسلم حديثتي هذا أن سومريني oo sheegayay inuu shaytaanku sidoo kooda ilaahay ya abuuray ku dhigi doono xadiidkii fi sahih muslim qeyrkii ku yiri nabigu wuxuu fayda balaqa dalika falyasta'id billah halka markaad gaadho ilaahay ka magan gal ilaahay ku carar tabaaraka wa taala maxay la arinkaasi waa ka tagsiinaya qaabkee loo sameeynaya isticaadadii magan galiyada waxa ku soo aroortay sunanka tirmidhi abu daawud an-nasaa'i soo saareen min xadiid abi sa'iid inuu nabigu ku dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam a'uudu billahi من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه همزه ووسواسك نفخه وكبرك نفثه وشعرك يا غبيغيس إله الشيطان بان مغان كاغا انتاس او اوليه هيبه مغان بان كاغا ساسا marka sugan inaad ilaahay uga magan gasho tabaaraka wa taala waxa kamida markuu ku yiraahdo ilaahay ya abuuray waxa qiidada waswaaska agaliyo إن الأخرده هو الأول والآخر والظاهر والباطن مركو قيدا يا أبوري الله يا أبوري دو قيدا ووسواس كنوع عاسي شكك أكو قلي وحتى الماما يا حديث كأبي زميل وحولي عبد الله بن عباس بن ويدي وحنكو إلو ما شيء أجده في صدري عبد الله يو شيئا قلبي جيجا كهلي الله بتيد محويه مركز وحولي ما هو محويه markaas waxa uu wallahi ma atakalamu bihi kuma hadli karo wax qalbiga ku jira afka ma soo saari karo markaas Allah wuxuu yiri ayu shay min shakkin ashay min shakkin wax shakiya waswasi shakki ku galayba wuu qosli buu markaa wuu fahmay macnaha markaas wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas ma naja min dhalika ahad cid ka badbaaday ma lehe يا عد كبد بادي بالله ما هيقول مركز وحو أخريه آيات الله يلي تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مركز وحو يلي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه وحصص وكلا عدرنتو أخري بولي تا أخري بمعنى وحوي ألا ومثكي هريي ومحكو هريي لهي ومثك ضمبين دونا ولا قد ضمبين دون ومثك سريو خلق جيسا كوضا سريو ومثك سكيو علم جيسا عن عيدنا كسكينو ميل والبيو جودها أكسون واحد مركا وحات الماميس الصفات كإلهي مركاد أخردو أو آد فهمتو قلبي أي قشو وسواسكي وحاكا بحيا إلهي يا أبوري صوما هو الأول
هو الأول isagaa u horeeyay lagamana horeeyay wixii kalena waa makhluuq dib ka abuurmay oo laga abuuray waa marka inaad akhrido taa iyada Abu Daawud baa wariyay sanadkiisuna waa Xasan Sheekh Albani alayhi rahmatullahi alayhi waxa kamida oo la dhihi kara daawada labaad way ama saddexaad mabda'a iimaanka inaad ku dhagto markii waswaas ku galo oo iimaanka iyo aqeedada shaki inuu ka galo isku dayo aamantu billahi ilaahi baan rumeeyay حديث صوم مرني فقل آمنت بالله حديث خزيمة سيدو كلا فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله إلهي رسول شي سار رميي إلهي رسول شي سار رميي شيء كذا أنكم تشروه إضافة طيب وحكم ذا ومحوها هاي هلك أيضا إيمانية الانتهاء عن الاسترسال في الوسوسة وسواس كان حسيد بصعني يا هسي ودن كيستاج استاج سكعلي ما قرأت هذا تسي معنزت واتر هذا بالوحوقة سي روض وتر برسير دقيس ما الحب كل تجي ساس تردد مع النبي نوح صلى الله عليه وسلم ولينتهي فإن ذلك يذهب عنه ولينتهي هكا استاج مركي نقطه يا الله أبوري استاج صوما استاج انت استاجتو استاج صوحا كاستاجتو وحتى هذا الهي بان رميي طيب استرسال كاسي مركي استاج waxay leeyihiin culimadu Khattabi rag lamida sababtu wax weeyaan bay leeyihiin ibn aadamka haduu shubahaad kugu furo dood kula galo oo intaad xujooyin u keento aad ka garhesho waxay u badan tahay inuu isdhiibo laakiin shaytaanka shubahaadkiisa iyo waswaaskiisa haddaad xujo kasta ka horgeyso ood ka jawaab istiraado marka dankan kaga rayso ood iridan ka soo xidho mid kale uu ka soo gali isdhiibi maayo garaabi maayo waa macangig laana inuu garaabo ma ujeedadiisu ma markaad xujadan ka soo xidho meel kale uu kaaga iimaanay markaad ka soo xidho ilaahay huwa al-awwal lagama horeynin ya abuurayna lama yiraah halkaas ugu daynaya ya taamarkaad ka tagto ka tagi maaye irid kale uu furanaya hadna dhan kale uu ka soo galay saas daraadeed hadaad istiraahdo la dood oo xujo raadi oo soo afjar hadaad istiraahdo waaba meeshu ku dhex fadhiyaba maxaa la marka waliyantahi ka istaag xid dagaal galo baabka iska xid saas ah macna waxa kamida daawooyinka kamida at-taflu 'an al-yasar san soo sheegnay badhanka bidixda inaad cadufto u tufto ونبي صلى الله عليه وسلم وليطفل عن يساري ثلاثا صدح قرنك بيدح هنا عروف وطفته إلى هنا كما ينقش تبارك وتعالى
adkaarta galabtii kuwa subaxdii la akhristo kuwa guriga marka laga soo baxayo kuwa suuqa marka la galayo muxuu adkaar waxa jirta nabigu noo jeeday sallallahu alayhi wasallam kulligood waa xirsi xidhwa ruuxa marka adkaarta hadduu akhristo waa la ilaalinaya haddii ku dhaco yani wax waswaas kuna oo adkaarta laazimana waa ka daawobaya maxaa yeelay sida Abdullah ibn Abbas alayhi rahmatullah uu leeyahay radiyallahu ta'ala anhu uu leeyahay wuxuu yiri ash-shaytaanu jaathimun ala qalbi ibn aadam shaytaanku qalbiga ibn aadamku gudul fadhiya fa idha saha wa ghafala waswas wa idha dhakara Allah khanas ya hadduu adoonku ilaahay xusuusto oo ilaahay xuso dib u guranaya waa dhuumanaya gadaal buu aadaya waa ka tagaya markuu adoonku ilaahay halmaamo oo qalbigiisa wax kala qabsadaan markaas uu intuu yimaado qabsanaya isaguna ka shaqaysanaya marka dhikriga ilaahay ayaa xirsi xidh ah saas macnaha oo la isku ilaaliya wa halil waswasu illa li ahli al-ghaflati wal-i'rad 'an Allah ibn al-qayyim alayhi rahmatullah marka xifdigu wuxuu ku jira dhikriga ilaahay ibn qayyim ibn taymiyah wuxuu fabayyana bidalika anna dhikra Allah aslun li daf'i al-waswas الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم ذكر إلهي بقى أصلوا وسواس كعلنتي سإنه الروح لقى عليه أما لقى داوية أما لقى إلاليه مركا خاصة أذكارتا عن تلماني وحكم ذو كلاء بينك مركا سيحاني سو آية الكرسي آخر شيطان كوسو دوان ماي صوما وحكم ذو كلاء مثلا لوضع آية ذي سورة البقرة قدام بيه بينك مركا سيحاني سو آخرين وحكم ذو كلاء هداد مالكي بقول قرآت هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مالك الشيطان ولا قايل عليه قولي قاعد مركز كصباح أذكارت قلبتي يا هبينك وماشي هو مجمسا أو يعني وسواس قال يستجيب إلى وحكم ذا وداوين كم ذا إن روح وسواس كل عين لقرآن صاروا مربو الروح تشرد نقنيه مركز أقول لك القرآن صار بوباين كليجي اسكوما في الله وإن لو جرمده مركا وإن لو جرمده مركا القرآن صار وحتى المام يا حديث كعثمان ابن عثمان من أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه وحليه هي النبي صلى الله عليه وسلم وحو يقدقي مقالات الطائف وحل كذا يديبي قدومي الله قدقي مركاسا جعل يعرض لي شيء في صلاته صلاة إذا لحي إذا مركان قالوا هم بوحي وصباح ينبله حتى ما أدري ما أصلي إلى أن قال هين أن قروا وحن تكنيب فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركان أرنك أسكو أركبان النبي قال يقول ضائف بكسو تجي مركان السفر سوق عليه رسولك ويم صلى الله عليه وسلم مركان سامركو النبي ويم رسولك وحوري ابن أبي العاص ورما هنا عصبة هنا أبي العاص مياه مركان سامر ها رسولك إلهي ما جاء بك ورمحاك ليل محاك كانك وقال الذي يضدك يا واحد آوي كبرتورها واحد ضدك الوجود بآوي مركز واحد رسولك إلهي وعرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي رسولك إلهي صلاة دي والله يقلي إلى واحد تكن يبهن قرواي مركز صو عرر مركز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان كاسوا الشيطان أدنه سودو يسودو فدنوت مركز سودو هذا النبي صلى الله عليه وسلم فجلست على صدور قدمي لبدا إذا قمدود في ضودان كفر يستيقظ نبي هرتيس فضرب الصدر بيده مركز الله تقعنت يقرفتي النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في فمي أفكنا ويقطف في النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا وحوي يقطف مركز وحوري اخرج عدو الله بحوي عدو إلهي كبح ففعل ذلك 3 مرات صدح قرب النبي سيدا سميه صلى الله عليه وسلم مركز وحوري يقول الحق بعملك كعمر الشقة هذه آدم كعشقة هذه قفص وأن بحيب يقولي فلا عمري ما أحسب خالطني بعد يقول ولي جاي دب سوماركم سومارس مركز سحابي واي ما يقولت إنه أذكرتي آخر سوى يا حوجا وكتنبط مركز وحوب بهاي مركز قارض روح إن لو جرمده ولا قرآن صار ولا تشافه حتى نعم حديث كاسي السيارة وحديث صحيح السجوان وحكم إذا إن أسباب توسواس ككين يسمرك هرب الروح الشراء
oo meesha waswaasku ka soo galaya marka horeba shaydaanku ku dhihi doono halka inaad marka horeba quful saarto waxa laga qaadanaya xadiidka Zayd ibn Jariya Haritha Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Jibril baa yimid في أول ما أوحي إليه مركي يقولس النبي قال له حديبا جبريل يمي فعلمه الوضوء والصلاة مركي صوح بري صلاة يويسد النبي بري جبريل بابري فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه مركو ويسدي دمي أيوحو قاتي صعب بيئة مركي صوح حبين كيسي ترنك كسيري ماشي حبين كسرنك كو آدني أيو كسيري مرضي يوحي بأس لقوي حديث كاس يسوونه وحديث سجن ما حيو تشدد طح ما حبيها ماشى الله وصيري اللو قويني يا صوت وحويان لأن الشيطان كهرد مركو كويدا هذا واد اسكو كايد ذي أما كادي بكاس صوت هذا طي يا للربائنا ترى هذا ما هو بيها اسكو صيري سمار وين هذا ما أنا اسقوي هذه وحي صوب حياة يمر بهداد هذا شيء وديستي شوتي وحي كله صوب حياة لقوة بدر المكتب واحد نظرك تمويه لكن واحد وسواس كي مركز سين نفسي إن لوقا عياض بانته ساس تراد ماشي بيكسر هذا وسواس كالطهارة قلت مركز سوي سيسته مرض قو سي هذا مركو كذا وحبا كاسو بحدو ترى هذا ما يحمي قوسه أنا بيسكت داري خلاص وابا انتهى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا صحابة يا أرددي سيقار كم إذا أرنتا وقشكتي قيان أي هليان مركي ويسد كدي بماشي قيان يحويكو أركيان مركزو حكويري مركاد استيشوتان أو ويسيستان ماشي بيكو صيرا كدبنا همي جاجي شقها كدجانين إسكا مشغولي شقها كجل حواس وابا حي ميل باقيدي يدنها كجل واحد لقوا مشغول ساسو كوير حسن البصري بقى واحد لو يدي تاسو كلام كاسو إلا عنه كمشغول بكوير كم مشغول هيسكو مشغولين لأن مشكلته وحي كذا لنا إذا مركات ترى هذا وحباه تشري حلي هل قصال يصلح فديه طيب وأنا ماشي ضدك دباطه كايسته وحكم إذا آذانك داوينك وحكم إذا آذانك وكان صمرني آذانك إنه شيطانك كعرره سهيل بن ذكوان اللي جداده أيوح له أباه باوحوا يدري ربني حارثوا يدري ويل بقى إلى الصعود مرك أضم بقى إلى الصعود مال أنا عمرين أيا بير حرن بعدنا لوجا جودي هذا لوجا دواقي غلامك إلى السعودية بقى مركب فيري ماشي مسوي واحد شو جاب ملك وحمص أركي مركز أنا أباه يقول أبو مركز ما درتان لو مال سي صعنا مال عدنا لوجا دواقي ماشي هذا فيرنين وحبارك وين مركز وحولي بودي لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك بول هذا وقال له هنا ضحى الله كل ما يسكو مدرين لكن هذا مقش الصوت قيل هذا مقش مال هذا مري فنادي بالصلاة آدم مال الله صلاة لما تشوف وقت كده هو هي الله أكبر محيا لي يقول أبو هريرة المقلي أو ضحية شيطانكم مركل آدم وعريا أسقوا ضوض النفس كسيديني marka aadaanka waa lagu daaweeyaa xataa dadka jinku galay iyo waxan iyo sumaar dhagaha in laga aadaamo aadaanka shaytaanku ka carara daawooyinku iyadana kamid yahay waxa kamid ah ruuxa waswaasku ku dhacay in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo in ilaahay ka qaado waxa tilmaamaya xadiidka Ubay ibn Ka'b soo marnay markii waxoogaa waswaasku galay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa kii laabta ka dharbaaxay kadibna uu duceeyay kadibna sida uu kaga tagay waxa kamid ah oo muhiim ah jiddan waswaasku sidiisaba wuxuu ku yimaadaa ruuxa oo shukuugta isagu qayb ka ah laakiin waxa la rabaa wax kastood sameynayso yaqiin ku dhis waxaad u tawaxana ku dilaabsan wax yaqiin aan ahayn ha ku tashan hana u dhag raaricin waswaaskan iyo waxan uu ku sheegayo wixii uu ku yiraahdana beeni oo fiirsan nabiga nuux sallallahu alayhi wasallam hadin midkiin uu shaytaan u yimaado salaada dhexdeeda ayuu idin iimaanaya markaasuu labada baryood dhexdoodu ka afuufaya markaas waxaad isleedahay wallahi neef baa ka soo baxay ya riwaayad qaar waxay leeyihiin Ahmed iyo soo saareen dabada muxuu ahaayay timaheeda ayuu mid kamid ah jiidahaya
markaasaad dareemaysaa markaasaad isleedahay malaa waxbaa kaa soo baxa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam faidaa wajada axadukum shay-an min dalik falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan laa yashuku fiih haddaad arrinkaa dareento wixii horey ka soo baxayana waa la mid salaada ha ka bixin ya ilaa aad maqasho shanqadh aan shaki ku jirin sawdkii ama